بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو هذا برنامج gaar ah kaasoo aan ku wareysanayno Cabdilaahi Sheekh Faarax kaasoo ah ama hore u soo noqday xildhibaan muddo laba wareeg ah waxa uu xildhibaan ka ahaa magaalada Dirdhaba xildhibaan heer deegaan ah sidoo kale daawadayaal Cabdilaahi waxa uu soo noqday gudoomiyaha degmada Erer iyo sidoo kale Daroor waxaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa hadduu Rabbi qadaro muddada kooban ee uu socdo xaaladda magaalada Dirdhaba iyo hadal hayn baahsan oo maalmihii ugu dambeeyay ka jirtay deegaanka Soomaalida taasoo qayb ka ah Dirdhaba waa la bixinayaa ama qoomiyad hebel ama kilil hebel bay raaci doontaa waxaan isdul istaagi doonaa hadduu Rabbi qadaro magaalada Dirdhaba halkay ku taalo taariikh ahaan iyo sidoo kale Soomaalida taariikhda ku leedahay iyo qaabka xaaladeeda hadda oo la joogo ay tahay dhawaan waxaan ognahay madaxa xafiiska arrimaha xuduudaha deegaanka Soomaalida inuu ka hadlay dhul badan oo kamid ah deegaanka Soomaalida kaasoo uu sheegay in ay qoomiyadaha kale ku doonayaan in ay qaabsid bursi ah ama aanan sharciga ahayn ay ku qaataan arrinkaas ayuu ka dambeeyaa wareysigeena bal waxaan isla qaadaa dhigi doonaa hadduu Rabbi qadaro Dirdhaba iyo sidoo kale xuduudaha oo inta badan deegaanka Soomaalida uu la wadaago maamul goboleedyada kale ka jira Itoobiya xaaladaha ka taagan Cabdilaahi Sadow bismillah waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo sheeko aynan Soomaalidu wax badan aynan ka fahansanayn oo maalmahan la isla dhaxmariyay baraha bulshada iyo media kala duwan warbaahinta kala duwan ee afka Soomaaliga ku hadasha arintaas waxay ahayd arin la xidhiidha xuduudaha uu deegaanku la wadaago deegaanka Oromiya iyo deegaanka Canfarta waxaana gundhigu ahayd magaalada Dirdhaba waxaa la leeyahay magaaladii Dirdhaba waa la qaadanayaa haddaba su'aasha meesha taali waxa weeye si kooban inaan u soo ururiyo aan rabo ama aan iftiimiyo magaalada Dirdhaba ma Soomaali baa sii wada oo bixinaysa mise Soomaali baa lagu soo duulo laga qaadanaya taas aan rabaa inaan ka hadlo marka waa gartay magaalada Dirdhaba haddaan si kooban marka uga hadlo Soomaali baa bixinaysa sii wada ilaa maalinka maanta amuyi cid ku soo duushay horta ma jirto waxay u sii bixinaysaa marka Soomaalida halka sharaxaad ka bixin ariftiimiyo magaalada Dirdhaba waxay kamid tahay meelaha deegaan Soomaali sameyntiis ama deegaan dhul ay Soomaali leedahay iyadoo isku maamusho meelihii eeday bay kamid tahay marka aan sidaa leeyahay magaalada Dirdhaba aan ka soo bilaababa isla waqtiga EPRDF timid xilka ama deegaano qowmi ah la sameeyay magaaladaas deegaanka Soomaalida dhulka maanta la yiraahdo ama dhulka ay Soomaalidu Itoobiya ka degto waxa la oran jiray saddex magac buu lahaa saddex qaybood buu qaybsanaa Ogaden Howdan Reserve Area Ciisana Gurgura Awraaja oo ay Dirdhaba ahayd haddaba EPRDF markay timiday waxaa la isla gartay maadaama oo Ciisana Gurgura Awraaja ay Dirdhaba xarunteedu ahayd taariikh hore oo ilaa Hayle Salaase iyo Itoobiya intay jirtaybana ay astaan Soomaaliyeed magac Soomaaliyeed ku suntanayd gobol ahaan Ciisana Gurgura Awraaja bay ahayd degmo ahaanna Gurgura Warada bay ahayd waa dhulka hadda administrationka ama maamulka Dirdhaba uu maamulo weeyaan Gurgura Warada markay sidaa tahay Ciisana Gurgura Awraaja waxa dhacday arinta oranaysa maamul gaar ah laga dhigo Gurgura Warada dadka gurgure ee dhaqankooda iyo siyaasigoodaba Addis Ababa markii lagu la kulmay ee Umar Zaraawi u soo bandhigay in kilil gaar ah laga dhigo Gurgura Warada iyadoo sidaa tahay maalinkii Umar Zaraawi yiri ha laga dhigo Gurgura Warada maamul gaar ah sida Hararido oo kale dadka Soomaaliyeed ee gurgure waxay diideen oo ku gacan saydeen inay Soomaali yihiin Soomaali waxay tahay inay ahaan doonaan iyagana in kil gaar loo sameeyo way qaadaceen halka marka ay maraso waxa la isla yimiday magaalada Dirdhaba waxa la yiri xarunta laga dhigo deegaankii Soomaalida waa tii la cararay goday la tagay waa la diiday Soomaali isku diiday goday baa la isla qaatay at that time reerka halka daga waxa lagu soo qaaday laguna soo sasabay kuraasta ugu sareysa ee deegaanka in la siinayo waxa kamid ah kuraastii la siiyay hogaanka nabadgelyada hogaanka maaliyadda iyo hanti dhowrka guud ee deegaanka waa sidii lagaga keenay magaalada Dirdhaba ee lagu geeyay goday halka marka ay maraso magaaladii Dirdhaba waxay noqotay baylaha beeshaas degtaayna way bayleysay iyadoo Soomaali daba cararaysa Soomaalina way dayrisay
markay dayrisay Soomaali waxay ahayd markii madaxtinimadeeda caasimadda in laga dhigo la diiday tusaale kooban haddana gobolka Ciisaana Gurgura Awraaja wuxuu dhalay heer gobol Ciisaana Gurgura wuxuu ahaa ismaamulka Dirdhaba iyo gobolka City maanta loo yiraahdo inta u dhaxaysa Dawanle Maayis xuduudda Djibouti ilaa iyo xuduudda Oromiya gobolkii City haddaba Ciisaana Gurgura Awraaja wuxuu dhalay City buu dhalay aw Gurgura Wareera waa su'aasha maanta meesha taagan taalo weey gobolkii City loo oran jiray xaruntiisu magaalada Dirdhaba ahayd maalin cad baa laga raro 5 kilomitir baa la geeyay magaalada 5 kilomitir u jirta ee magaalada Dirdhaba xafiisyadoodii meel lagu ogyahay ma jirta xataa tusaale kooban bariga Hararge gobolka la yiraahdo Oromiya xaruntiisu waxay ahayd magaalada Harar ilaa maantana waa Harar kilka Hararida magaalada Harar way inta marka laga yimaado Dirdhaba muddo dheer waxay ku jirtay waxa la yiraahdo kumeel gaarka ismaamulka kumeel gaarka ee Dirdhaba yaa dhigantay jirtay waa baarlamaankii laba baarlamaan kaliya laga soo doortay Dirdhaba oo anagu kamid ahaa waan gartay mas'uuliyadii askar hadleedahay marka waan fahmay mas'uuliyadda waxa iska leh hadba taliska ka taliya deegaanka Soomaalida ayada iska leh oo dayriyay banaan cidlaana dhigay tusaale kooban haddaan soo qaado Dirdhaba waxay ka mid tahay dhulka ku baxay degmooyinkii tirada badnaa ee referendumka ama aftidii Cabdi Jibriil madaxweynihii waqtiga ayada dhulka uu bixiyay qayb ka ahayd waxay ku ahayd Dirdhaba markii aftida la qaaday ee degmooyin badan oo ka mid tahay ma ayso Nageyle Baabili Jinacsan degmooyin noocaas waqtigii la wareegay Dirdhaba ma bila kadib madaxweyne Cabdilaahi Xasan baa joogay waqtiga ayada laakiin awood u badan madaxweyne ku xigeenkii oo ah dadka gobolka ka soo jeeda Cabdi Jibriil Abubakar ayaa joogay waxa la isla qaatay qodob oranaya hal lagu dhaqmo 40 odayaasha Soomaaliyeed ee magaalada Dirdhaba dhamaantood way qaadaceen magaalada Dirdhaba waxay qadiimi ku tahay laba beelood baa ah labadan beelood magaciisa ay xambaarsan tahay magaceeda ay xambaarsan tahay baa ah waxa weeye labada beelood oo Ciise Gurgure waqtiga ayada ugaas Ciise ma jirin laakiin ugaas Gurgura jiray isaga gurigiisa lagu tashanay Soomaali ku tashanaysay waxa arriminayay oo talinayay 10 oday oo Gurgura 10 oday oo Ciise 10 oday oo Soomaalida kala arinta 40 si cad bay Soomaalidu u qaadacday labadooduna way diideen laakiin waxa timiday in markii dambe la isku hoos guuro labada Soomaalida midkood lagu yiraahdo maayarnimada idin diyaar ah halkan aan sameeyno sidaan aan sameeyno waa la yeelay mid maayar ku xigeen buu noqday Dirdhaba waxa la yiraahdaa hadaba maamul loo sameeyo oo maxaa loogu sameeynaya 40 lagu qaybiyo 40 waxa weeye Oromo inay 40% yeelata maamulka Soomaalina 40% yeelata maamulka 20 ka soo hadhay inay Soomaalida kala noqoto baarlamaan loo sameeyo maadaama ku meel gaar ahayd Soomaaliyada kala hoos gurtay waqtiga ayada ogsoonow maayarka Oromo way maamulka marka jira maayarka Oromo way maayarku xigeenkuna waa Soomaali iyo qaybta waxa weeyaan dhinaca u eelatay maxaa hadaba wax lagu qaybinayaa magaalada Dirdhaba mid ba Soomaalida ka maqan mid ka maqan waxa weeye magaalada Dirdhaba iyo Addis Ababa waxa la maamul gaar ah Soomaalida mid ka maqan waxa weeye magaalada Dirdhaba waa magaalo maamul ma aha Addis Ababa guri ka baxsan caasimadda ma maamusho laakiin Dirdhaba waxay maamushaa 80 kilomitir oo bariga iyo 60 kilomitir oo galbeedka bari iyo koonfuriga waqooyi labada deegaan Soomaalida iyo Oromada cishada baarlamaanka Dirdhaba marka laga soo dooranayo majority-giisa baarlamaanka Dirdhaba waa 189 xildhibaan weey arba marka 40 marka la yiraahdo 75 kamid ah ka soo baxa magaalada xarunta oo ka kooban 9 degmo halka uu miyigu ka kooban yahay 38 degmo baarlamaanka miyiga Dirdhaba ka soo baxa waxa weeye 114 xildhibaan weey 40 ka marka Soomaali waxa yeelatay 75 xildhibaan Oromana waxa yeelatay 75 xildhibaan qowmiyadaha kale ee xamaarada iyo dadka soo raacana waxa yeelanayaan 39 xildhibaan inaan horta warbixinteedan iyo mawduucan dhameystira fiican su'aashaada jawaabteedu waqti dambe ahayd hasa ahaatee waanu ka hadalnay hadda ka hor barnaamijyo badan oo ka diyaarinay oo kaga hadlaynay 45 daqiiqo aanu kaga hadalnay warbaahinta kala duwan baa jiray oo aan markiisa u fadhiyo Dirdhaba ee aanu Dirdhaba ka hadlay haddaba imika xildhibaanada tirada lagu baysgareeyay ee noocaas ah 57 39 ee 189 ka xildhibaan ah
soomaalida 75 xildhibaan ay leedahay 45 kamida waxa iska la beesha gurguray soomaalida kalena waxay leedahay 30 laba xubnood oo heer federaal laga soo doortaa oo golaha wakiilada shacabka ee federaalka halka ay Soomaaliya waxa ka soo baxa laba xildhibaan labada xildhibaan waa 50-50 iyo midna Oromo midna Soomaali baan 45 xildhibaan iyo xildhibaan heer federaal ah waa 46 xildhibaan dadka intaas oo baarlamaana maanta kule ee heer kilil maxaadana magaalada Dirdhaba ka soo baxa 5 kamida waxa iska la beesha gurguray Soomaalida kalena waxay leedahay 30 laba xubnood oo heer federaal laga soo doortaa oo golaha wakiilada shacabka ee federaalka halka ay Soomaaliya waxa ka soo baxa laba xildhibaan labada xildhibaan waa 50-50 iyo midna Oromo midna Soomaali baan 45 xildhibaan iyo xildhibaan heer federaal ah waa 46 xildhibaan dadka intaas oo baarlamaana maanta kule ee heer kilil maxaadana magaalada Dirdhaba ka soo baxa deegaanka Soomaalida hal xubin oo ku matalay ma ay jirto last 15 years cid ku matalaysa ma jirto hatta marka la shaqaalaysiinayo shakhsi kamida beeshaas waxa lagu leeyahay ma gabadh hebla dhashay mise gabadh heblu qaba batadu midaha kale la degan kamida no deegaanka Soomaalida dadka baarlamaanka inta la eg leh guud ahaan deegaanka Soomaalida ama dalka Itoobiya waa 45 xildhibaan oo laga soo doorto magaalada Dirdhaba laba xildhibaan oo laga soo doorto heer kilil iyo xubin heer federaal 38 xildhibaan qabiil Soomaaliyeed oo kule deegaanka Soomaalida ma ay jirto ama dhulka Itoobiyada degto dil isu gooyo ama gobolada 12 lagu sheegay dalka deegaanka Soomaalida cid kulliye ma jirto dadkaas wax xuquuq ay ku leeyihiin deegaanka Soomaalida haba yaraatay ma ay jirto inta waxa dheer waqtigii dagaaladii 77kii jaaifooyin badan oo ka soo gaaray baa jira dadkaas waxa kamid ah 500 oo beerood oo ka badan 500 oo beerood oo ku yaala degmada Erar ee beeshani degto oo ciidamada militariga Argos uga qaateen baa jirta waa cambe waa muus waa liin waa waxa weeye khudaarta adag geedka adag weey dadkaasi iyadoo xiriyo military ay dhulkoodii la wareegeen xirada aan ku halka aan bayaamiye xirada ciidanka militariga ee dalka Itoobiya ku taalay waa xirada labaad ee Itoobiya way ugu weyn way waqtigaas aan la dajiyay magisto xayla marin dajiyay waxa taas kale dheer ku dhawaad 7,000 oo guri oo ay beeshu lahayd waqtigii axmaarada la dajinayay magaalada Dirdhaba ayaa si xoog lagaga qaaday federal systemkii ayadoo halka joogtay dadkaasi jaaifada Soomaaliyeed qabeen maanta oo deegaan Soomaaliyeed la yagleelay xuquuqdoodii oo dhan bay ku waayeen dadka marka meesha degan intaas oo xildhibaanna ku leh dhibaatooyinka maanta ay deegaanka Soomaalida ku qabaan kuwaas weey waxa kale oo 1 iyo 2 iyo 3 aan oranaya inta sababood ay deegaanka ay dadka Soomaaliyeed ay u horeen waxa koow ka in deegaankooda la yiraahdo kilil gaar ah la idinka dhigo oo diidaan referendumkii ka dhacay 2004 deegaanka Soomaalida ee Cabdi Jibriil bixiyay degmada Erar degmada kaliya ee ka badbaaday baa degmada kaliya ee ka badbaaday ay ahayd ee tiri anaga Soomaali baan nahay hal qabale lagama qaadanin markii ay naga ila baxaysay markii ma aysan baxaysay markii jina casali baabili intaas oo markii ay baxay hal qabale lagama qaadin waar Soomaali bay yiraahdo waxa xigtay 3 markii la sameeyay baarlamaanka Soomaalida ee Dirdhaba markii baarlamaanka loo sameeyay 45 xildhibaan ay heshay waxay gurgura go'aansadeen madaxdooda dhaqanka iyo kooda siyaasiga 19 xildhibaan in la siiyo Soomaalida kale si looga saaro meesha fikirka oranaya Ciise ana gurgura 19 xildhibaan bay u haneysay qabiil kasta oo Soomaaliyeed hal xildhibaan bay siisay degmo kasta oo gurgura leeyahay waxa ka soo baxay degmo kasta waxa ka soo baxay 3 xildhibaan laba gurgura iyo laba Soomaalida kale ka soo baxay أنا قبيل Soomaaliyeed oo aan kursiga siin ma jirto taariikhda dad ama federaalka ama cid kasta haato darajo kasta wax lagu qaybiyo cid aanan u dhalan ee ka soo baxda lama arag waan gartay taas marka waxay keenaysaa maanta xaaladda taagan ee Dirdhaba la bixinaya la leeyahay in
xuquuqda dadka diridhaba degan ee Soomaaliyeed lagu durkiyay laguna fogeeyay inay wax ka helaan dhulka Soomaalida iyo maamulkeeda waa caqabada koobaad waa gartay inta aad xildhibaanka ahayd oo aad xilka haysay isla markaana shacabkaasi aad ku matalaysay wali cabashadaasi ma geysay xafiisyada ay qusayso heer deegaan taa aniga kaliya ma ahaba siyaasi baa hadlay hor fariistay madaxweyne kasta soo maray maxaa la yiraahdaa oday dhaqameed baa hadlay ugaas baa hadlay cid walba hadashay xuquuqda ay beeshaasi leedahay cid xaqiijisa waa la waayay marka laga tagi waayo madaxweynaha maanta jooga mudane Mustafa Maxamed Umar Mustafa Cagjar oo dacwadii u horeysay u soo gudbinay la xiriiday dadka beerahooda laga haystay ee Hoorso inuu ka jawaabo cabinet hor dhigay lana go'aamiyay walaal arintaas door muhiim ah oo ka qaatay Cabdiraxmaan Ciid waqtigii uu joogay dooxooyinka fikirka cidii keentay isagoo degmada Erin soo daraasay soo bulshada loo soo bandhigay siyaasi iyo dhaqanba cabinetka la hor dhigay ilaa iyo maanta Mustafa arinta uu ku dhawaaqay inuu fuliyana way ka go'day laakiin cid hor taagan baa jirta dibadda weyn Mustafa haysta waxa weeye cid caqabada Mustafa haystay waxa weeye de gobol walba ninba wakiil uga ninka wakiilka uga ahay wuxuu xumeeyaa inuu Mustafa xumeeyay bay noqonaysaa ma ogola in beeshaasi ay xuquuqdooda hesho caqabadaha ka haysta dhinac walba in la xaliyo lama ogola wal hortaagay marka arinta ayada ilaa iyo hadda isagii ma la hadasheen oo cabashadii ma gudbiseen oo in wax ka qabto kalma ka hadasheen meeshaas definitely waa la gudbiyay arinta waana la dhameystiray sida anigu ku sheegay xaqiiqiyan inay fusho laakiin caqabada hortaagani waxa ka sidaan qabo siyaasiyiin badan oo maanta dhinacyo badan ku haraysan oo ku hareeraysan madaxweynaha ama ha ahaadaan waxaad arkaysaa hadda qabiilo Soomaaliyeed oo leeyahay waa Oromo leeyahay hadda jinacsani iyo wad arkaysaa meesha la yiraahdo jinacsani tuli imka maalmood nin dhan waxaan arkay la yiraahdo aqoonyahan baan ahay laho waxa weeye professor Mareykan joogaan ahay le geel jiraha dhama runtii Faisal Roble wuxuu ku leeyahay reer hebel ma sheegan karaan Soomaali waxay noqotay Soomaalinimada inay dad maanta aqoonyahan baan u nahay dhada laakiin geel jiraha maanta aan waliga jiingad meel ku talaaran inuu dhaamaan maanta inay leeyihiin waa Oromo hay halkan waa Oromo kan kale waa Oromo waxa weeye sadbursiga Soomaalida iyo cadaalad darrada Soomaali dhexdeeda taalay waa toogu adag taalo weeyaan in Soomaali in Oromo noqdo Oromo waxay sheegaysaa waa gartay maxaa wax loo qaban karaa baad isleedahay qanidaam noocee wax looga qaban karayaa cid waliba xuquuqdeeda inay hesho dadku sida ay u kala xuquuq mudan yihiin nin waliba percentiga xuquuqeedu leeyahay inuu helo dadka intaas la eg saamiga leh ee dhulka leh xuquuqdooda inay helaan haddii la waayo 45 xildhibaan iyo xildhibaanka heer federaal bay ku xiran tahay helitaanka xuquuqdooda tirdhaba inay noqoto Oromiya inay noqoto Soomaali kale inay noqoto kale madax bannaan 45 xildhibaan bay ku xiran tahay ugu dambeeyay ujeedinaysa maxay tahay baaq ugu dambeeyay jeedinay waxa weeye Soomaali cadaalad haday sameyn weydo Soomaali haday cadaalad sameyn weydo waxa weeye nin waliba dhulkiisa isaga iskale meesha ku darsanaya isaga xaq weyn Oromo hadii la isku sheegayo shalayba qaar ba sheeganaya Tigray Ismaaciil Jibrti baan isku nahay maxaa mancinaya inaan aradkiilo aan heli karayo inaan ra'iisul wasaare aradkiilo ka arrimiyo noqdo maxaa Soomaali citizen lagu sheegayo la ina faquuqayo ninka aradkiilo joogay loo jaajuusnimo tago maxay mancinaya inaan noqdo maxay iga hayo dhulkayga dihin iyo waxa weeye maxaa iga mancinaya marka waxa weeyaan xuquuqda aan ku waayo jigjiga diyaaramayn aan ka helo wax mancinaya ma jiraade intaas ayaan ku soo afmeerinaa daawadayaal barnaamijka aan ku wareysanaynaa Cabdilaahi Sheekh oo horey laba mar xildhibaan uga soo noqday magaalada Dirdhaba waxa uuna xildhibaanka ahaa xildhibaan heer deegaan ah Cabdilaahi haatan xildhibaan ma aha balse waa siyaasi iyo sidoo kale xubin kamid ah xisbiga FEP barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigeynay xaaladda magaalada Dirdhaba iyo sidoo kale arrimaha la xiriira xuduudaha barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmayno waxaan kaga tagnaa sidaas nabadgelyo